ku dhowaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha milatariga ah oo si gaara u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldambiyeedyada lagu helo, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah, intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas. hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha milatariga iyo garsoorka kala toona, kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay. galka baaristu waxa uu diiwaan geliyay ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah, dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin. inuu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland 7 bishii November ee aynu soo dhaafnay waxaa maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ah ku fulisay 5 nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish. hase yeeshee bishii September ee isla sanadkan waxaa gacanta ciidamada booliiska ku dhintay nin lagu magacaabo Axmed Maxamed Xaaji Aadan Abuukar oo ku magac dheeraa Axmed Gaawo, kaasi oo la soo qabtay 30kii August isagoo lagu tuhmay falal argagixisanimo ah. eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. Maxamed Xaaji Eenow waa aabaha Axmed Gaawo. markii wiilkii la xiray aan raadinay ninka u dirnay nabadoonkii meeshii aan u dirnay waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa nagu soo laabo. 3 beri laga aamusi maanta afraad loo tagay wiilkii ma xaalkiisa war wiilkii meesha ku dhintay anaga dugnay sooyire magarat anaga dugnay dhaheen anaga dugnay wiilka meesha ku dhintay anaga meesha ku dhintay anaga dugnay war ma noqonaaye wiilka dib baa ka dhashatay baa dhalay el baa leeyahay. xubno dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in Axmed Gaawo lala yeeshay waraysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. sidaasi oo kale qoyska Axmed Gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyay. waana meel kale soo lagu deeyay markii ninka uu soo gaarnay kadib markii loo keenay wiilasiga bareelaata ay keenaysiiya meesha ka geesta ayaa waqti soo garsaas ayaa ku reeyay wasiirka baliyaha. wararka dhinaca amniga ah ee uu helay galka baarista ayaa muujinaya in Axmed Gaawo xubno ka tirsan ciidamada amnigu ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyay bisha September, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10kii habeenimo ah. kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga, balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata, naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. ehelada Axmed Gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud. taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay Axmed Gaawo. galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay Axmed Gaawo. waxa loo soo qabtay inuu argagixisada wala shaqeeyo kana mid yahay. kabacdi maxaa dhacay? xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyay, wuu dhintay. see wax u dhaceen? dhimashada ilaahay ku shaqale waqti asagoo banaanka marayana waa dhintaa, isagoo xirana waa dhintaa, isagoo muddo dheer joogan wuu dhintaa. taasu wax fiican kama taagna ilaahay baa ku shaqale qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan. marka laakiin de arrintan gaarka maxaa ku dhacay isagoo u dhintay? wuxuu sababsaday maxay ahayd? wuxuu qoolsaday ma jiraan oo la dhihi karo waxaa ku saabsan ninka waa soo qabtay baaristu ku jiray baaristu ka dhacay xabsiga ka dhex dhintay oo nafaas u dhintay. marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seebuu ugu dhintay mise waa la jirdilay? adeer meesha tan cidna laguma jirdilay, waxa ka jiraan wataa ma jiraan. qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqtiga doona wuu dhici karaa, ma aha waqti walba lagu xanuunsana. kali aniga wax xanuunoo hadda laysoo gudbiyo ma jirin, laakiin ninkaasoo dhimashadiisa ayaa laysoo sheegay markii aniga. marka waalidkii waan la hadalay, dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax bannaana waan la hadalay. waxay leeyihiin ninkan waa la soo qabtay sida aad sheegtay, xabsigaa la keenay 30kii bishii August sanadkan ayaa la soo qabtay. 5 maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga. waxay leeyihiin ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray, kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto. su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, isagoo caafimaad qabaa la saaray, isagoo naf xun ku jirtana waa la soo celiyey. intii ka dhaxaysay maxaa dhacday taliya? maxaan waxba ka jirin? ma inuu naf xun ay ku jirtay
mise inaan in meel loo kaxeeyo waxba kama jiraan anaa ku cadaynayo waxba kama jiraan. muxuu u dhintay marka ileen adiga maadaama ninka aad soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran aanad xirtay wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa hadda? wuxuu dhintay geeri rabbiga baa ku shaqalay. wuxuu dhintay ninkaa waa xira waana dhintay. waxaana la cadeeyey inuu shabaab ahaa iyo nimanka argagixisada u ka tirsanaa dadka lagu jiray. isaga waa dhintay xabsiga ku dhintay dadkii isagu laayey dadka aaminsa maarag. laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayey miyaa la geeyey? ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsano ah. maxaa tidhi? maxkamadda waa la geyn lahaa kiiskiisa markii la dhamaystiro maxkamadda la geyn lahaa dee qofka uu dhintay. laakiin intaan la geynin isagoo xabsiga ku jira dembina aan weli lagu caddayn ayuu dhintay. waa lagu caddeeyey dembiga lagama caddayn waa lagu caddeeyey dembiga waa ku caddeeyey. marka maxkamad baa ku caddaysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen? maxkamadda qofka xukunkay ku ridaa laakiin beriiska iyo seeliga soo diyaariya dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaana saysaraga loo maro. marka intaad wareysanayseen muddadii aad hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsan yahay shabaab inuu wax dilay? waa qiranaya qiraanka. gaashaanla sare xuseen cali maxamuud waxa uu ku sheegay waraysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyo cisbitaalka balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin. galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogtaa ay diideen inay qabtaan. taliya sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay soomaa ninkan? geerida qof suxan ayaa dhintay ninka haaruna sooma dhacday isagoo wadada maraya. waa gartay laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay sooma? hadana kolley dee qof xagee buu ahaa anaga wax u qarsoonaa uurkiisa ma jiro. marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay waa la wareystay sida aad adu ii sheegayso anu ma ogi ma fiirsan qiraalkaa goobjoogna kama ahayn sida aad ii sheegayso wuxuu qirtay falaal argagixisaa kabacdina wuu dhintay. sidee bay arrintaasi ku dhacday? sidee ku dhacday maxaa ka jeeda? qof caafimaad qaba in lasoo xiro la waraysto kabacdina uu dhinto bal sawir iga sii siday ku dhacday arrintaasi. adiga sawirkaasi qof ay kiisii gashay inuu dhinto sababtii u dhiman waayo miyaan u hayaa anuu dhiman karo ilaahba u hayo. kiis kale oo qayb ahaan shabaha kan ka dhacay magaalada boosaaso waxaa laga diiwaan geliyey magaalada diinsoor ee gobolka baay ee maamul goboleedka koonfur galbeed. taariikhdu waxay ahayd 20 Disembar sanadkii 2017. cabdinaasir suufi jaylaani oo sidoo kale loo yaqaano cabdinaasir suufi roobo waxa uu ku noolaa magaalada diinsoor tan iyo intii uu ka soo goostay ururka al-shabaab ee uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta magaalada. maalintaasi 20 Disembar waxaa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax. intaasi wixii ka dambeeyey mas-uuliyiinta magaalada iyo helada cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen. waxaanse la isku khilaafsanayn in 21 Disembar uu si aan sharciga waafaqsanayn u dhintay cabdinaasir suufi jaylaani. mas-uuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna lasoo qabtay cabdinaasir suufi jaylaani iyadoo falkaasi lagu tuhunsan yahay. qaar ka mida mas-uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toosa ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayid ah uu ku dhintay askarna ay ku dhaawacantay balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in cabdinaasir uu u joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaamaysto maadaama uu aroosayey sida ay sheegeen. waxayna intaasi ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada diinsoor kuwaasi oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca dhulka ah. maxamed cali isxaaq akhay waxa uu ka mid yahay ehelada cabdinaasir suufi jaylaani. waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada diinsoor ee uu hogaaminayey guddoomiyihii hore Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow. 20 baa lasoo qabtay habeenkii 22 uu ku hoyay habeenka la dilay waxay 22 bisha ahayd 17 marka isla habeennimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay goor 5 saac bar habeenimo ay tahay adiga ninkii meeshii baa xoogaa lagu jidkeeyay xoogaa jid loo geystay jidkii baa kulley nimankii meesha kula dagaalan saldhigga gudihiisa feertan bidixda waxaa beynad laga geliyey ninkii markii feerta laga geliyey beynadii u dhintay ninkii. mid ka mid a saraakiisha booliiska diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka cabdinaasir aan weydiiyo guddoomiyaha degmada diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhowaan xilkaasi laga qaaday. guddoomiyihii hore ee degmada diinsoor Ibraahim Shigshigow waxaan waraystay 21 Juun 2018 xilligaasi oo uu hayay xilka guddoomiyenimada magaalada. waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuq ah oo jaadka lagu iibiyo
haweeneyna ay ku dhimatay 2 askarina ay ku dhaawacmeen. waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay, dad shacab ahna ay arkeen. waxaa kaloo ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo carruur sida uu hadalka u dhigay. guddoomiyaha degmada Diisoor waan waraystay, Ibraahim Shigshigow. waxa uu leeyahay ninkan sida aad sheegtay rabshad baa dhacday, bam buu tuuray, bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay, dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray. beentiisi waaye, ninkii alaab buu iibsinayo markhaatiya loo hayaa oo islaan ilaahay ah, asagoo maacuun iibsinaya bacaadlaha laga soo qabtay. meesha wax ka dhacan in ninkan usumu dhaweyn, ninkan asagoo habeenkii khamiis asagoo jimcadii rabay inuu oros galo oo wixii ay diyaar yihiin, gurigiisa la sharaxay, wixii ay diyaar yihiin arrintaas ku dhacday. waxa uu sheegay beentiisi waaye. laakiin waraysiga aan la yeeshay saraakiisha kale ee amniga waxay beeniyeen in Cabdinaasir Suufi Jeylaani uu ku dhintay suuqa, waxayna iyagu ku doodeen inay jirdileen ciidamada daraawiishta. waxaa la ii sheegay in la geeyo xabsiga magaalada oo xilligaasi ay gacanta ku hayeen ciidamada daraawiishtu, ayna yihiin ciidamadaasi kuwa jirdilka u geystay. ciidamada daraawiishta ee xabsiga gacanta ku hayay waxaa madax u ahaa Shiine Mayow oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta ee magaalada Diisoor, xilkaasi oo uu ilaa haatan hayo. Cabdinaasir Suufi Jeylaani wuxuu ahaa nin al-shabaab isku soo dhiibay. isku dhiibidtii annaga waa soo dhiibna, qof walba shabaab isku soo dhiibo oo Soomaali ah waa soo dhiibaynaa. kadib wuxuu sameeyey santarka magaalada meel ka mid ah oo meel ganacsi ah oo maqaahid ah oo shaah lagu gado ayaa bam ku tuuray oo maaragtay isheeg adiga isla markii damkii gacantiisa dhehday jiiro ku jiray askara majid damkii markuu qarxay iyo horeyaa laga soo qabtay. asana waa gartay hada 2 qof ay ugu jirtay asagoo ka aan kashaan isku jirnay. markii habtiga la keenayay oo arrintaas uu sheegay inay tahay way baxsadeen, asagana meesha ku dhintay. qorshahan noocaasa cid allaana cidii magaaladan oo dhibaato usoo wadana ma arkay anaga qabiil iyo kulan shughul laguma jirin magaaladaas ka masuulnahay si afkaasi anaga masiidiisa qaanay. cid allaana cidii markaas maamulkeysana ma arkay aan gacan jira lagu jeesanaya. shabaabna waa adow ugu muddo Soomaaliyeed loo soo diray waaye iisug marka waaye maalintaa markii la qabtay 20 December 2017 markii la qabtay xagee la geeyey? kabacdi maxaa dhacay? kabacdi waxaa dhacay askara xabsiga ayaa joogtay oo maaragtay oo xabsiga waa geysay. dadkii waa la haday hadii la haday qabaali adiga wada la soo qabtay waxay ahayd ilaa 4 amal ay shaqada kuliyay faraxnay 10 saac galabnimada. dadkii waa dhintay waayo isheeg adiga qof oo dambi kale garasho lagu qabtay in aan xabnada anaga go-aankeena ma ahayn oo lisku dili ma ahayn. nin asaas oo qof oo shacab maanta inuu waayo oo marna bamkii labaad ay tuuray taasuu ahaa, mid waa qarxayo midna wax kama gaarin. waa gartay baska waa gartay bamka waan gartay, laakiin sidee loo dilay, sidee u dhintay? adiga maanta aniga ku sheegada ninka banaanka si toos looga soo garaacay intii la soo wado waaxna iyo gacan iyo ay ku tafiisana oo maanta oo yiraahdo bilaadada ayaa oo ninka shabaabka lagu haro ayaa lagu haray meeshii ku dhintay. marka isagoo meesha ku dhex jiro dhintay mise xabadaa lagu dhuftay? maya isagoo ku dhintay ma waqtigiisa ayuu galay dadkii iyo garaacaankii ayuu u dhintay iyo biila intii samayn. marka adiga galay ninkaasi wuxuu ahaa nin shabaab ah. waa ku gartay taliya Cabdinaasir Suufi Jeylaani ma waxa garaacis buu dhintaa tiri, ma booliiska garaacay mise cid kale iyo daraawiishta? isla waqtiga uu telefoonkaasi go'ay waxaan mar kale ku celiyey taliya Shiine Mayow, hase yeeshee kama uusan jawaabin wicitaanka telefoonka. kiis saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuhun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baardheere 3 December 2018. ciidamo ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xiriirinayay ururka al-shabaab, kuwaasi oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu. taliyaha ururka 49aad Xidigle Faarax Cabdinuur Cabdi Turbac
waxa uu waraysi uu siiyey idaacadda VOA uu ku difaacay dilka la tuhunsanayaashaasi. waraysigani waxa uu idaacadda VOA ka baxay 1dii bishii Janaayo 2019 waxaana waraysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. tirada 6 qof weeye la toogtay. marka ma maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddada 5 bilood aad gacanta ku hayseen mise siday u xirnaayeen ayaad soo qabateen oo waa toogtay? Markaan waa la baaray waa la xaqiijiyay qiraal bay wada ahaayeen dadka idilena dad loo wada yaqaanay ahaayeen sida aad la socoto taliyaha xoogga iyo wasiirka gaashaandhigga awmir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay 2 generaal ay ku dhinteen meesha leeyahay afkooyi xilli askar loo sameeyay awmir waxay bixiyeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas in al-shabaab hadii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharciga la waafajiyo anaga awmirta ay ka duulina ayaan fulinay dilkan. marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaana ay eedihii loo jeediyay iyo aad ku fuliseen? anagu ciidan baan nahay amar baan nala siiyay amarka nala siiyay baan fulinay. maxkamadda militariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah waxayna soo qabatay Xidigle Faarax Cabdinuur Turbac. 4tii bishii May ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awoodoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada Baardheere. Xidigle Faarax Cabdinuur Turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldareystay inuu maareeyo ciidankiisa waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xarig ah. hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dawladda Soomaaliya u degsan. Xasan Shire Sheekh waa gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika. midka qaanuunka Soomaalida u degan iyo midka gobolka ee Afrika u degan iyo midka caalamiga dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dambi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku caddeyn inay dambiga galeen. waxaan la hadlay qaar ka mid ah taliyayaasha lagu eedeynaya dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin. waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab dil bay geysanayaan qarax bay geysanayaan dad masaakiin ayay mar walba ayay bartilmaameedsanayaan. wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhaxeeya ma jirto shabaab umana naxariisanayno. waxa waa khaldan yihiin maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini'aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dawladda intii isku dhiibay jagooyin waaweyn oo wadanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qayb ka yihiin. marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jahwareeriyey dhalinyarada ah aad usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga u ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn qorkagoys degdega ayadoon maaragtay maxkamada la iskeynin. cadaaladdu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dawladda. galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay. waxaanse la xiriiray wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. horan arrimahaas waa arrimo runtii yani dhaco aniga naftigii kaysas badan oo noocaas lamida waa arkay waana yani wayna jiraan waa waxa loo yaqaano extrajudicial killing yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin laiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaabe. waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabtaa lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga. arrintaas waa arrin qalada. qofka shabaabka marka lasoo qabtay wuxuu u baahan yahay in dembiga lagu caddeeyo in maxkamad la keeno in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaasna lagu rido. in dad la iska dilo waa qalad yani iyadoo aan la marsin shuruucda waddanka.